السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين عبدقني أحمد halkaad nagala socotaan waa Cabdiqani Axmed channel. maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc sidoo kale muhiim ah oo mowduucyadii ka hore aan ka hadli jirnay la mid ah. waxaynu ka hadlaynaa maanta sidii aad video aad soo dhigtay YouTube thumbnail ka saaran ama sawirka sida kaartada camal u dul saaran aad u bedelan lahayd oo aad u saaran lahayd sawir aad adiga ugu tala gashay. marka thumbnail waa sida kaarto sida u yaqaanaan Soomaalida filmaan oo kale markii la daawanayo waxa la soo dejiyo kale kaarta la jiro. marka kaartada ayaa loo af Soomaalihan loo dhihi karaa ama thumbnail marka waa Englishkiisa. thumbnailkaas sidii loo bedeli lahaa ayaanu ka sheekeynaa maanta. marka aynu doonayno inaynu thumbnail bedelno waxaynu sameeynaa marka hore waxaynu isticmaali karnaa laba wada ayaa jirta, wada computerka marka isticmaalaysa ama laptop aad u jirto iyo wada mobile ah. marka tan mobile-ka waxa ayaanu ka hadlaynaa maanta. tan mobile-ka waxa u baahan tahay marka hore waxaad gelaysaa Play Store. markaan Play Store galno waxaynu raadinaynaa application la yiraahdo YouTube Studio. YouTube Studio markaan raadino saad aragtaan waa kaasa anigu hadda waa ii degsan yahay already. marka hadduusan ku degsanin install baa soo dhahnaysa. hadda YouTube Studio baynu furaynaa open waynu meeshaan nooga dhufanayna qaybta videoska ayaanu tagaynaa. kadib marka YouTube Studio soo galno video aad rabto inaad thumbnailkiisa bedesho ayaad dul tagaysaa. tusaale ahaan aniga hadda hees cusub caadi ma ahna nasiibka caligan ayaan ku dhufanayaa edit calaamada qalinka editka ayaan ku dhufanaynaa. markaynu calaamada editka ku dhufano sidaad arkaysaan waxyaabo badan oo kusoo baxay description waxaad ku qoran lahayd tagskii wixii baa kusoo baxay. marka edit thumbnail ayaan ku dhufanaynaa. edit thumbnail markaad ku dhufato thumbnail marka saddex kaarta ayuu soo bandhigay hadda waa ujeedaan video aad soo sameysay macnaha saddex muuqaal oo kamid ah ku tusaya wuxuu ku leeyahay midkaan saaro midka rabto waa saari kartaa. haddii aad rabto marka inaad sawir adiga u tala gasho aad saarayso custom thumbnail ayaan ku dhufanaynaa. markaynu custom thumbnail ku dhufano kadib sawirada ayaanu galaynaa. sawir alla sawirka mobilkaaga kugu jira ayaa soo dooranaysaa aad rabto inaad saarato. marka waa ka kaadi custom thumbnail. tusaale ahaan anigu hadda sawirkan oo kale ayaan rabaa inaan saaro thumbnail tijaab ahaan weeye. marka thumbnail marka waad dhaqaajinaysaa intii aad ugu tala gashay sawirka inuu ka muuqdo intaan calaamada ay marsan tahay cad wixii intaan gudahan ka soo muuqda ayaa maxay ahaydoo hadhow ka soo muuqanaya kaartada ama thumbnailka. waa kaasa kor hadda u dhaqaajiyo intaa uu ku egyahay maxay ahaydoo madaxa wixii ka koreeya ayaa hadda soo yara baxay ilaa intan hoostan. haddaan soo dejinana waa kaasa ilaa leerka soo muuqanaya ujeedaan. marka ilaa leerka sidaan hadda ka dhigaynaa select ayaanu leenahay kadibna save ayaanu dhahaynaa. markaynu save garayno saad u aragtaan hadda videoga hadday backgroundkiisii ama thumbnailkiisii wixii soo muuqanaya wuu isbedelay. marka waa kaa maxay ahaydoo thumbnailkiisii sida ayuu isku bedelay hadda. waa kana hees cusub caadi ma aha. waa kana ujeedin waa u koreysiinaya kan ugu koreeya waaye thumbnailku wuxuu noqday sawirkii hadda anaga aynu ugu talagalnay. marka maanta cashirka iyo mowduuca aan ugu talagalnay inaanu ka hadalno saa uma badna. waxyaabo kale oo YouTube ku saabsan iyo videoyo kale intaan la wayna soo wadnaa sidii YouTube monetization oo kale sida loo sameysan lahaa oo kale channelkaaga saa u firfira garan lahayd mawaadiic fara badan aynu soo wadnaa insha Allah. marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideen mowduucaas. fadlan haddii uu videogan ku cajab geliyay channelka subscribe saar, videoga like saar, share garee, comment. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.